Okay, soo dhawaada dhalinyaro inta waxaan ku duubi doonaa line bedka cusub sida loo buuxiyo. Okay, ID-gaana ku dhufanaynaa marka hore madaxiisa. Meeshaan personal profile oo madaxa ku qoran yahay aan ku dhufanaya. Meeshaas qalinkaas kor muujida fill personal data meesha ku qoran tahay. Qalinkaas taabso soo qaado. Meeshaan godkan kuwaad magacaaga ku wada gelinay. Waxaa lagu dhahaa Cabdi oo kale ama Maxamed ama waxaa rabtid. wixii lagu dhahaa surname-kaas marka qaabkaas sameynaysid ugu xiran tahay marka one click aad u sameyso surname-kaas meeshaas hadda aad gelinayo waa u baahan tahay telefoonka markaa kicinayso marka surname-kaas waa mar walba inaad haysataa marka surname-kaas xifdiya because haddaad ku xirin number surname-kaas uu ku weydiinaa okay godadkaas saasaa gelisay magaca koowaad iyo magacaaga surname-ka awooha iyo middle name magaca aabbaha markaa gelisay meeshan oo afraad waxaa gelinay xilligaa dhalatay meeshaas 2004 ay ku qorantaa ku dhufane sanadkaa dhalataa soo qaadanay adaa yaqaan sanadkaa dhalatay iyo bishaa dhalatayba okay leedahay meeshan place of birth ay ku qorantaa waa meesha aad ku dhalatay Soomaaliya leedahay region aad ku xigto gobolka iyadaa soo bixisa Muqdisho markaa ku dhufato city caasimadda waaye iyadaa soo bixinaysa Muqdisho leedahay meeshan ay ku qorantahay resident of address waa jidka aad degan tahay waxaa rabtaa gelinaya anada waxaa joogaa jidka wadnaha gelinaa okay document type passport ID document iyo national ID card midka isticmaasho marka hadda aniga waxaan dooranaa ama adigana mar walba waxaa kuu fiican aad dooratid national ID card si ay waxaa macquul u ekaato meeshan serial ay ku qoran tahay waa ka booda godkan kale meeshan document number ay ku qoran tahay waxaa leedahay capital ID aa leedahay 9 number ay gelinay hadda passport sax haddaad haysan 9 number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 labadaas number ugu dambeeya waxaa ka dhigay 2 eber ama 1 9 si aa u ekeysiisa wax sax ah macnaha ID sax ah markaad aad gelinayn oo ID-ga rabta aad gelinaysid Cabdulshidee markaa gashanayso kaleeto saasaa ku buuxinaya laakiin haddaa wax sax haysato wax sax aad geli kartaa okay meeshaan date of use xilliga aad qaadatay baasaboorka 2020 aa leedahay bilaa soo qabsanaya iyo date okay meeshaan ugu dambeysa EasyJet iyo hawaa EasyPay meesha aad ka qaadatay waxaa gelinaya Soomaaliya government waxaan ka qaataa leedahay dowladda Soomaaliya tigta ku dhufanaya oo wareegana wuxuu ku soo dhaha markaas shaqadaada waa ku guuleysatay change made successfully waa ku guuleysatay ule saas waa buuxinta saas ku buuxisay marka ina fahanteen jeclahay ma santiin